iyadoo tani intii qaraxii argagixisay uu ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho sabtidii aynu soo dhaafnay isla markaana ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay u istaageen sidii loo caawin lahaa walaalahooda dhibka uu ka soo gaaray qaraxaasi ayaa shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Gaarisa ee xarunta gobolkan Waqooyi Bari waxay bilaabeen inay dhig tabarucaada ay u ururiyaan walaalahooda ku waxyeelooday qaraxaasi ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho. magaalada Gaarisa ayaa waxa si weyn looga dareemayaa dadka oo ku deeqaya dhiig ay u ururinayaan walaalahooda qaraxaasi wax ku noqday. qaar ka mid ah dadkii bixinayay dhiigooda oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay dareenkooda u muujiyeen sida tan. meeshan waxaan isugu imaanay inaan ka tacsiyono oon ka xumaano oon la murugoodno wixii ka dhacay xamar. dad badan baan intay dad badan dadkan magaaladan aan joogno iyo county Gaarisa iyo Kenya kula hadli lahaa. Kenya waxaan dhihi lahaa muslimiinta Soomaalida ee joogto qar Allah idin siiyo saalmaanta u soo baxdeen dhalinyaradeenu khayr Allah siiyo marka dadkiina dhalinyarada ay soo baxdeen aad iyo aad baan ajir iyo thawaab iyo sadaqa weyn ila ibn aadamka wax uu bixiyo waxa uu qaalsan naftiisa dhiigaada waa naftaada marka waa tii ugu dambeysay waa khayr Allah idin siiyo laakiin sida si ka badan ina u soo baxdaan oo door bari la wado oo walaalahan la ooyno sidoo hadaa walaalkay sheegay oo xanuunkana hayo aan muujisaan yaa idinka rabnaa. Gaarisa County waxaan halka u taaganahay waxa way dad iskiisa maanta soo baxay oo la baroor deeqahay waxyaalaha ka dhacay Soobe halka Muqdisho oo ka dhaqasay xanuunka lagu qabtay dad iska ahay maskiin oo maarta iska ganacsanay oo la laayay ilaa 300 qof oo shakhsiyaale dhowr boqol ay maqan yihiin. dadkan arkaysiin waa dad iskoo soo aawilay oo ka go'aan ka gaaray inay bixiyaan dhiigooda. waxa u maleynaa bil aadan wax ka weyn u bixin karo qayb kamid ah jirkiisana ma jirto aan filayaa. marka waxaad arkaysaa ilaa boqolaal ba hadda dhiigooda bixiyeen safaf dheerna way jiraan wixii oraxda soo kulaatay bay u taagan yihiin inay dhiigooda bixiyaan. midaas waxay ku tusinaysaa ummadda Soomaalida iyo muslimiinta inay yihiin hal jir ah meel ay joogaanba. in fadlan shacabka reer Gaarisa waxaan ka baranahay ha isku soo baxaan maalinta sabtiga waxaad arki doonteen dhalinyaro oo qabaan shadow white oo ka hadlayaan in loo gargaaro shacabka lagu laayay isgoyska Soobe. reer Gaarisa andana dadka shacabka Muqdisho waa qalbiga ugu hayaan way isweydiinayaan Soomaalida Kenya aaway wariyaha Soomaali Kenya raadin Soomaalida Kenya waxay joogtaa gobolka Waqooyi Bari maanta handaad adiga istaagto aad walaalkaas saacidayso handaa laakiin aad dhahday wixii ka dhacay Muqdisho u taala tan Gaarisa way waxaad ogaataa berito ninkan bir hil baad u baahan garab baad ugu baahan tahay Soomaali way isleedahay Soomaali hal way yaan la kala qaadin yaa lagu dhihin Soomaali Kenya Soomaali Djibouti way Soomaali Ethiopia ma jirto waxaas Soomaali way waxaan isku keenkeen luuqadda Soomaali haddii aan ahay dhalinyarada magaalada Gaarisa ku nool aad iyo aad ugu xunnahay waxaan wax loo dul qaadan kara maahan shacabka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool waxaan dardaaran mas'ala aan si laha in waxaan iska qabtaan si dawladda ay la shaqeeyaan. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo gol raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed dhaab gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.